waxaan ahay dad ka soo jeeda halkan qomiyadan dadka wadankan ku dhashay baan ahay khaasatan waxaan ku dhashay magaalada Cielo ismaamulkeedaas Cielo County sida malaha aad ku arki doontaan ama aad kuba aragteen dadka badan ee ka hadlay dhowrka ah odayaasha leh haweenka leh ee ka soo jeeda ummadan taariikhdeedu waa taariikh aad u dheer khaasatan wadankan Kenya marka waxaan isku dayi doonaa anigu in ka qayb kamida inaan anna ku darsado intii aan wax ka ogahay waxa hore loo xusay in taariikhdoodu iyo imaatinka ay wadankan Kenya khaasatan iyo East Africa ay yimaadeen ay tahay kuwii ugu soo horeeyay inkastoo ay group ahaayeen koox ahaayeen kala duwan waqtiyo kala duwan ay yimaadeen socodkuna binaadmigu aanu joogsanin ilaa imka qaar cusub inay yimaadeen baa laga yaabaa ama arday iyo jaamacado iyo ganacsato hadda cusub laakiin kuwii ugu horeeyay waxay yimaadeen sanadku markuu ahaa ama 1800s-kii 1800 iyo 80-aadkii meelahaas kooxo kala duwan ilaa waqtigaasna ay kala dambeeyeen khaasatan anigu markaan iska waramo aniga awooyaashii labada dhinacba iyo ayooyinkii iyaga laftigooda waqtiyo kala duwan bay yimaadeen halkan un bay isugu yimaadeen ama iska heleen ama qaarna cadan bay iska heleen laakiin awoogay aabbo markaan ka soo waramo Ismaaciil Muuse waxa uu yimid isagu wadankan inaan isagoo dhalinyaro isaga walaalkiisa halkan la keenay waxayna ahaayeen ciidamo ayaa loo keenay dagaalkii koowaad First World War oo 1945 meelahaas ahaa ayaa la keenay ciidamadaas oo Ingiriisku uu ka keenay Somaliland Protectorate uu ka keenay ama maxmiyadii Somaliland laga isaga iyo dad kale ayaa waqtigaas u yimid isagoo dhalinyaro ah walaalkiisoo ka weyn isna aadan la oran jiray iyo isaga aadan mabu soo gaadhin Nairobi iyo Cielo iyo meelahan ku dhaqanay labaduba ciidankaas ay ahaayeen wuu xijaabtay oo jeer buu ku dhintay inta ciidanka ay soo socdeen laakiin aniga awoogay Ismaaciil Muuse wuxuu iyo Soomaalidii kale ee maaragtay Isaaq ahaa iyo dadka kale beelaha kale waxay laga keenay Somaliland waxa uu darajo ka gaadhay ciidanka darajada loo yaqaano Regimental Sergeant Major ama RSM wax la yiraahdo dadka garanaya yaqaan Regimental Sergeant Major saacadaydan oo kale oo yara ma garanaysa ayay ma aragtay gacanta ku xiran jireen Regimental Sergeant Major saacad noocan oo kale ma hatan exactly laakiin wax sida u soo yar ego garoonka dawladda ama crownka marka Ingiriisku ay ma aragtay ay ku sawiran tahay ayay qaadan jireen dad badan oo dad dhowr ah waa iska koobnaayeen Afrikaanka oo dhanba isaga iyo dad kale waxay dadka markaa darajada ugu sareysa leh waxa ka sareeyay qaar ba ka sareeyay oo ay kamid yahay nin aad u caano la yiraahdo Effendi Farah Effendi waa darajo Ingiriisku markaa bixin jiray oo aad iyo aad Ingiriiskuna ugu kalsoonaa xitaa governorka la socon jiray marmarka qaarkood ma garanaysaa ninkaas oo isaaqa marka la sii tilmaamana ka tirsanaan jiray beesha Habrionis marka taariikhdu saasay ahayd 3rd battalion bay isla ahayn ama 3rd regiment bay ahaayeen iyagu ciidamadaas markii dambe ay howlgabka noqdeenna waxa la weydiiyay in maaragtay waxa la kala dooransiiyay inay noqon doonaan wadankoodii Somaliland ay ku noqonayaan qaarna waxay door bideen inay iska joogaan oo in badan qaarna waxay iska bideen inay iska tagaan pension ahaan baa loo siinayay garanaysa kharashkoodii howlgabka ayaa loo siinayay pension ahaan marka waxa la isku dayay meelo badan in la isku meeshii la dejin lahaa adigu meelo dhowra baarlamaankii beriga Ingiriisku u badnaa ayaa lagaga dooday halkee baa la dejin doonaa askartan howlgabka retireeska ciidamada iyo qoysaskoodu malaha waxay dhamaayeen baan filaya malaha kun askari bay markaa gaadheen waayo wixii wax hore oo wax dambe gadaalka ka soo biiray iyo wixii hore aakhirkii adigu groupkan awogay oo ka soo jeeday Cielo ayaa ma aragtay la dejiyay halkaasaanu sababtaasaanu Cielo laakiin de hore waa looga soo sheekay meelo badan qaar kala deganaa oo waqtiyo kala duwan yimid
marka simply waxaan doonaynaa aan halkan ka sheego in taariikh mugle oo contributions ama wax badan kusoo kordhinaysa dalkan iyo East Africa gaar ahaan guud ahaan ay dadkani kasbadeen oo ay contribute gareen walina ku sii wadaan in badanna dadka kale ay kaga duwan